kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. Haddii nagu cusub tahay subscribe oo qaybta gaduudan ku dhufo isla markaana furo meesha gambaleelka ah si aad noola socoto oo aan muuqaalada aan soo gelin doono ay kuugu soo hordhacaan insha Allah. markali ayay farxad la ilmeeyeen hooyada iyo aabaha reerka waxaana guriga ku soo biirtay gabadhii sanadaha badan la sugayay. lamaanahan oo ku nool gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaa lagu kala magacaabaa Carruurtooda iyo ooyey. ugu dambeynna waxay soo dhaweeyeen gabadhoodii ugu horeysay waxaana dhawaan ay hooyadaas ku umushay gabadhaas oo farxad badan guriga laga dareemay gudaha dalka Mareykanka. lamaanahan isku dhaxa ayaa labaduba 45 sano jir isku faca waxaana ay haysteen sanado badan oo ay wada noolaayeen curadkooda oo 28 sano jir ah oo ay ka yiriin 13 wiil taas oo isku darka ka dhigaysa 14 wiil oo isku xigay iyadoo lamaanahaasi cunugoodii 15aad markan Allah ku arsaaqay inay gabar noqoto. wiilasha qudhooda ayaa waxa ay u ahayd mid aad ay ugu farxeen in gabadha la dhalatay markii ugu horeysay oo ay ku haminayeen ay arkaan mid walbana waa uu xambaaray. sheekada qoyskan gabadha u dhalatay waxa warbixin ka diyaariyay telefishinka CNN-ka waxaana ay qabsatay baraha internetka ee Mareykanka iyo caalamka. diin walba qofka ha haysto waxa la isku raacsan yahay konkan la joogo in gabar markii guriga ay ku soo biirto ay ka farxad badan yihiin wiilasha marka ay dhashaan waana sababta markasta gabdhaha loo daryeelo loo koolkooliyo waxay u baahdaanna durbal loo sameeyo. Soomaaliya marka la joogana gabadhii wiilal badan ay la dhasheen waa ay ka nasiib badan tahay inamada kale ee gayaankeeda ah. daawadayaal intaasaan ku soo gabagabeynayna muuqaalkan oo aad ka daawanayseen channelka Salma Vlog and Entertainment. intaan muuqaalkan mid la mid isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.